السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan doonayaa in aan idinla wadaago 4 qodob oo ilmahaagu uu u noqon karo mid ku maqla adigoon dilin canaanan kuna qaylin. Marka ugu horeysa ee aad aragto isagoo ilmahani khalad sameynaya isla markiiba ka falceli oo u sheeg inuu wuxuu sameynaya khalad yahay. Haddaba sideed ugu sheegaysaa ayaa meesha taala. ta ugu horeysa aad sameynaysaa waxa weeyaan waad soo gaabinaysaa, waad soo foorarsanaysaa ama waad fadhiisanaysaa, jilba joogsanaysaa. Ilmahaaga waad taabanaysaa, labadiisa gacmood ayaad qabanaysaa ama garbihiisa ayaad taabanaysaa. Kadib indhihiisa ayaad indhahaaga ku eegaysaa. Markaas ayaad u sheegaysaa khaladku sameeyay adoo u raacinaya weliba sababta uu khalad u noqday waxa uu sameeyay. Markaas waxaad sameynaysaa talabaad ee ta saddexaad kuma odhanaysid hadallo hadalladii aad ka rabtay wuxuu sameynaya aanu ahayn. Tusaale ahaan kuma odhanaysid khaladkaas sameeyay waa run ku garanayaaye waxa sameey oo wixii uma sii tilmaamaysid, laakiin waxaad si cad ugu sheegaysaa waxa aad rabtid in aanu sameyn. ta afraad waxay noqonaysaa waxa aad u sharaxaysaa waxa uu sameyn doono marka sidan oo kale ay soo noqoto. Tusaale ahaan haddii uu ilmahaagu isagoo ooyo xanaaqsan koob laaday oo uu jabiyay, waxaad u sheegaysaa in aanu marka labaad ee uu xanaaqo koob laadin, laakiin uu adiga kuu iman karo, laabtaada uu soo geli karo, aad aamusiin karto. insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan. isagoo faahfaahsan YouTube-ka ayaad kala socon doontaan.